Juventus ayaa ka hadashay go'aankeeda kaga aadan la soo saxiixashada ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Wales iyo kooxda Gunners ee Aaron Ramsey kaasoo heshiiskiisa dhacay bisha June ee soo aadana. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska Corriere dello Sport wuxuu kaga hadlay wararka la xiriirinayo Aaron Ramsey. Agaasimaha oo hadlayay ayaa waxa uu sheegay Aaron Ramsey waa ciyaaryahan weyn, wuxuu ku sugan yahay koox aad u fiican, wuxuu heshiiskiisa dhamaanaya goordhow. Waxaan xiiseynaynaa xaaladiisa dhanka suuqa, waxaan si wanaagsan isha ugu hayn doonaa xaaladiisa, balse xilligan la joogo Aaron Ramsey wuxuu ku sugan yahay kooxda Arsenal, waana arki doonaa sida ay xaaladu noqoto. Ugu dambeyn, agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus ee Fabio Paratici ayaa waxa uu hadalkiisa ku soo xiray wararka ku aadan in tababaraha kooxda Juventus Massimiliano Allegri waxa uuna ku yiri waxaan hubaa in Massimiliano Allegri uu sii joogi doono halkan sababtoo ah waa tababaraha ugu fiican Juventus. Ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus.